waligaa ma doodeen qof aad hubtid boqolkiiba boqol inuu qaldan yahay, oo si kastaba aad u tustid cadeymo muujinaya inuu qaldan yahay, aadan waligaa qancin karin. Maanta waxaan ka hadlayaa tijaabooyin lagu ogaaday waxa dadka jaahilka ku kalifaa iyagoo aan cilmi lahayn haddana mowduuc kastaba uga hadlaan sidii inay yihiin khubaradii oo kale. Marka hore ayaa waxaan soo qaadanayaa sheekooyin gaagaaban oo qaybtooda saynisyahanadu ku kaliftay in daraasado muujinaya habdhaqanka dadka ay sameeyaan. Magaceyguna waa Cabbaas Mustaaf. Thailand ayaa waxaa ka jirtay boqortooyo. Ciddii cayda ama wax ka sheegtaa boqorkii reerkiisaba ayaa waxaa la saari jiray maxkamad. Waxaa jiray nin lagu xukumay 60 sano xarig ah, asigoo lagu soo oogay inuu boqorada u gafay. Haddaba shuruucda boqortooyadaas la xiriirtay oo waddankaas ka jirtay ayaa waxaa ka mid ahayd in mamnuuc ay ahayd in boqorada la taabto, ciddii taabatana ay muteysanayso dil toogasho ah. Haddaba bishii shanaad 1880 ayaa boqorada oo ahayd xaaska boqorka waddanka xukumayay uurna u lahayd ayaa waxay ku guda jirtay safar, iyadoo la socotay dooni webiga maraysay. Waxaa safarka ku weheliyo ilmo 2 sano jir ah oo ay dhashay iyo shaqaalaheeda iyo ilaaladeeda. Haddaba doonidii ayaa webiga ku degtay, ilaaladii xitaa iskuma dayin in boqorada badbaadiyaan sababtoo ah mamnuuc ayay ahayd in la taabto. Boqoradii ayaa halkaas ku naf weyday. Waxaa jirto koox isku magacaawday People Unlimited oo waxay ku andacoonayaan in qofka haddii uu aamino inuusan dhimanaynin ay dhici karto inuu weligiisa noolaado. Ninkii aasaasay ayaa waxaa lagu magacaabaa Charles Rahul Brown. Ninkaas ayaa waxa uu dhintay 2014 asigoo u dhintay Parkinson iyo wadne xanuun. Kooxdiisa ayaa markii uu hogaamiyahooda dhintay weli waxay ku andacoonayaan in qofka haddii uu si fiican u aamino inuu weligiisa noolaado oo saas samayn karo, dadkan dhintana aysan aaminin nolol dheeraad ah. Khuraafaadkaas ayay dad wax magarato ah lacag uga qaataan, siminaar ayayna u qabtaan. Sawirku waa nin bangi xadaya, laakiin inta badan tuugta bangiga xadaa wajiyada waa ay dabooshaan si aysan kaamirooyinka u soo qabanin oo loo ogaanin cidda ay yihiin, booliiskana u soo qabanin. Haddaba muxuu ninkan ugu duwan yahay tuugta kale? Sawirka sida ka muuqata wajigiisa si caadi ah ayaa loo arkaa. Booliiska ayaa fiidiyowdii kaamirooyinka duubeen shaashadaha ka sii daayeen si cidda taqaana ninkan u soo wargeliyaan. Waxyar kadib dad yaqaana ayaa soo wacay oo sheegay magaciisa iyo meesha uu degan yahay. Markii gurigiisa looga yimid ayuu yaabay oo askariga weydiiyey, sidee ayay ku dhici kartaa inay isoo ogaataan? Macquul ma aha, liin ayaa wejiga marsaday, sidee ayay ku dhici kartaa inay isoo ogaataan? Ninkan ayaa waxa uu yaqaanaa in liinta loo isticmaali karo in qoraal aan la arki karin lagu qoro. Haddii aad cariiska liin dhanaanta soo qaadatid oo aad waraaqad ku qortid, qoraalkaas lama arkayo. Waxaa la arki karaa markii wax kul ah loo dhabeeyo ama qoraxda u dhigtid ayaa waxaa soo baxaya qoraalkii aad liin dhanaanta ku qortay. Ninkan ayaa wuxuu u maleeyay si liinta u qoriso qoraalka lagu qoray, si la mid ah wejigiisa ugu qorin doonto kaamirooyinka. Wejigiisa ayuu ku dhaloqay liinta, asigoo isleh kaamirooyinka kuma arkayaan. Markii la ogaaday ayuu yaabay sida lagu ogaaday. Sheekadan yaabka badan ayaa 2 nin oo Professor cilmi nafsi ah oo la kala dhihi jiray Dan iyo Crocker ee isweydiiyeen dadka aqoontooda miyay buunbuuniyaan. Tijaabooyin ay sameeyeen ayay ku ogaadeen in dadka isku arkaan inay ka caqliga cilmi badan yihiin sidii dhabta ay yihiin. Shaqaale shirkad software sameyso ayaa tijaabo laga qaaday. Boqolkiiba 42 ka mid ah waxay isku arkaan inay yihiin boqolkiiba 5 ugu cilmiga badan shirkadda. Darawallada Mareykanka boqolkiiba 93 waxay aaminsan yihiin in boqolkiiba 50 darawallada ay ka xirfad badan yihiin. Haddaba xisaabiyan arrimahaasi macquul ma aha, waxayna tusinaysaa in dadka badanaa khibradda iyo cilmiga ay leeyihiin ay buunbuuniyaan. Waxaa intaas ka sii daran, dadka ugu jaahilsan ayaa ah kuwa aadka u buunbuuniya awooddooda iyo maskaxdooda. Tusaale ahaan, kooxo ka qaybgalaya dood ayaa kooxii ugu hooseeyay doodda looga adkaaday intaysan ogaanin natiijada. Waxaa la weydiiyey doodaha boqolkiiba intee ayaa ku guulaysateen.
waxay tilmaameen wax ka badan 60%, halka xaqiiqda ay ka ahayd 10%. Marka waxaa la soo ogaaday in dadka awoodda garashada yar tahay ay buunbuuniyaan waxa ay yaqaanaan oo isku haystaan in dadka kale ay ka aqoon badan yihiin. Arrintan ayaa waxaa lagu magac daray oo soo helay oo loo yaqaanaa Dunning-Kruger effect.